Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay koobkii adduunka ee ka socday dalka Qatar ayaa waxa uu Cristiano Ronaldo ciyaaryahan weyn waxa uu ku tilmaamay in guuldaradii waddankiisa u soo hoyatay sidoo kale ciyaartii faraha badnayd oo qaybo ka mid ah dhammaanteedba aan la ciyaarsiin ayaa waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta arrintaas isagoo sheegay in Cristiano Ronaldo sababta qura ee loo haysto ay tahay waa sida uu madaxweynaha dalka Turkiga sheegay inay tahay taageerid uu muujiyay dadka markaasi qadiyadda Falastiiniyiinta taas oo uu sheegay in dadka Falastiin ka soo jeeda ama u dhashay oo taageerayaal markaasi dhowr jeer ah uu si dadban u taageeray madaxweynaha oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay madaxweynahan waa madaxweynihii keliya ee arrintan oo kale siyaasad markaasi ku dabaqay balse arrintani waxay tahay arrimaha waaweyn ee dadyo fara badan oo caalamka ku nool ay markaasi ku tuhmayeen in siyaasad ahaan loo fariisiyey markaasi ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo madaxweynaha dalka Turkiga inta badan waxa uu ka hadlaa waxyaabo markaasi isaga qudhiisa siyaasad ahaan aragtidiisu ay fog tahay daawadayaal adiga qudhaada maxay kula muuqataa maadaama madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan arrintan isaga qudhiisuna ka hadlay ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo ka mid ah ciyaaryahanada ugu laacibsan adduunka koobkii weynaa ee ka socday dalka Qatarna arrintiisa siyaasad ahaan markaasi loogu dabaqay maadaama qoladan gaaladuna ay tahay qolo markaasi arrimahaas oo kale cajiib ku ah daawadayaal waa mahadsantiin muuqaalkan sii share gareysay si aad u heshaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale falanqeyno cajiib ah